haweeney u dhalatay dalkaasi Talyaaniga oo ku dhawaad 2 sano lagu haystay gudaha Soomaaliya ayaa shalay dib xorriyadeedii u heshay isla markaasna ku laabatay wadankeedii hooye ee Talyaaniga. halka waxa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo xubno kamid ah qoyskeeda iyo xubno kale oo kamid ah dowladda dalkaasi oo aad ugu farxay imaatinka iyo soo deynta la soo daayay haweeneydan oo lagu magacaabo Sevilla ayaa sheegtay ku dhawaad 2 sano inay gacanta ugu jirtay kooxo afduubayaal ah. waxa kale oo sheegtay sanadkii 2008 in laga ka haystay wadanka Kenya loona gudbiyay wadanka Soomaaliya hay'aduna sheegtay sheekooyin dheer in halkaasi ay ka soo ogaatay isla markaasna ay la soo kulantay dhacdooyin badan oo cajiib ah oo ay faahfaahin dheer ka bixisay. Sevilla ayaa waxay tiri waxaan arkay waxyaalo aad u badan nolosheedii 2 sano kamid ah waxaan ku soo qaatay si xorriyad la'aan ah oo waxaan ku noolaa anigoo aan lahayn wax xorriyad ah. hayeeshee maanta ayaan dib ugu soo laabtay waxay aad u hambalyeysay aabaheed oo korkiisa ay ku weysay walaasheed iyo dhammaan qaraabadeedu idin ay halkaasi ku soo dhaweeyay oo farxad u muujiyay iyo reereyn midda ugu baasan ee qof loo hamuun qabo loo fidiyo muddo dheer. waxay farxad isla weysay ayadoo idin waxay ka sheekeen weysay wixii qabsaday kadib markii ay ka bixin weysay hambalyeyn iyo bogaadin ay u muujisay dadkeedii qaar kamid ah. sheekadan dheer ee Sevilla ayaa waxay tiri waxaan ka sheekeyn doonaa xilli kale maadaama haatan ay tahay marxabeys soo dhaweyn iyo galgacal oo kaliya iyo dad aan muddo ka maqnaa waana aad u soo dhaweynaya. waxa gabanin deysmadeeda ka qayb qaatay ciidamada dowladda ammaanka Soomaaliya iyo ciidamo caalami ah sida la sheegay warbixinta lagu soo gudbiyay. yeeshee guud ahaan waxay ka mahadcelisay cid allaale cidii gacan ku siisay inay mar kale dib ula midowdo qoysaskeedii iyo wadankeedii hooyo oo muddo dheer ay ugu dambeysay. waxay tiri waxaan kaga mahadcelinayaa hadiye jeer isla markaasna hambalyeedii u dirayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay in dib aan ugu soo laabto wadankeyga oo aan muddo dheer ka maqnaa anigana xorriyadeedii waan helay. hayeeshee muddo dheer ayaa xorriyad aan haysan oo waxaan ahaa sida qof maxbuus ah ama jeel ku jiro oo kale. taani waxay ku hayd arrimo culays ku ah nafsadeeda iyo bini'aadanimada intaba. waxay tiri qofka haddii uusan xorriyad lahayn wax ka weyn ma lahan oo waa dhibaatada ugu baahan ee qofka uu la kulmo. taa ayaan aniga aad iyo aad ula cajiibsanaa ayay tiri. miisdahaynin qoysaskaadii ayaa dib ula midoobi doontaa oo waxaad tagi doontaa maalin qura hoygaadii. hayeeshee tani riyo ma ahane waa run wayna dhawowday inaan qoysaskaygii dib ula midoobo oo aan la noolaado. muddo dheer ayaan u qabay una baahnaa arrin farxadan oo kaleeta inaan ku arko indhahaygana ay qabtaan. taani waxaan kaga mahadcelinayaa ayay tiri mas'uuliyiinta dalkeena ee juhdiga xooggan iyo dadaalka dheer ku bixiyay sidii mar kale aan xorriyadeeda dib ugu heli lahaa uguna soo laaban lahaa wadankeyga hooyo oo halka aan wax kasta ku doorsanayn. maxaa yeelay halkan waxaa ku sugan qaraabadeyda qaarka ugu waaweyn oo ah sida aabahayga hooyadeyda iyo walaashayda oo marnaba aan doonaynin inaan ka ag fogaado wax kasta oo igu yimaado. taasi ayaan aad u soo dhaweeyay ayay leedahay. farxadeeduna waa intaa waana kaga mahadcelinayaa dhammaan. warbixintan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaya janalka haatan sida tooska ee warbixintan idin soo gudbinaya iyo barnaamijyada arrimaha bulshada waxaa lagu magacaabaa Dooxa Media. fadlan haddii halkan aad ku cusub tahay waxaad saaraysaa subscribe like share intaba waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan haatan idin soo gudbinayay. mar kale waxaan isla soo gaarnay gunti iyo gabagabada barnaamijkan waxaan idin leeyahay dhammaantiin waqtiga idin waxna